صبرا صبرا يا بغداد، جيش الغزو سوف يباد، سنحرر أرض النهرين وسنقتل كل الأوغاد. أولاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Welcome back again to Ashraf Academic Online. كسودو Ashraf Academic Online. waxay noo soo casharadeenii taxnaa ahay haddii ay maalintii kugu horeysay oo aad dana soo booqatid waxaan ka codsanaynaa inaad ugu soo biirto asxaabtaada oo share gareyso. Okay, maanta waxayna qaadan doonaa conversation wada sheekeysi. Wada sheekeysi ayaynu qaadan doonaa. Conversation wada sheekeysi A iyo B ayaa ka wada hadlaayo. Okay, A ayaa hadalka bilaabay wuxuu leeyahay do you like ma jeceshahay to learn English inaad barato Ingiriiska. Do you like ma jeceshahay to learn English inaad barato Ingiriiska ma jeceshahay? Do you like to learn English ma jeceshahay inaad barato Ingiriiska? B ayaa ka jawaabay oh Allah yes I like waan jeclahay to learn English inaan barto Ingiriiska. I like waan jeclahay to learn English inaan barto Ingiriiska. Okay, oh Allah yes I like to learn English waan jeclahay inaan barto Ingiriiska. Yes I like to learn English waan jeclahay inaan barto Ingiriiska. Okay, A ayaa qaadanaya wuxuu leeyahay when do you like goorme ayaa jeceshahay? When do you like goorme ayaa jeceshahay to learn English inaad barato Ingiriiska? When do you like goorme ayaa jeceshahay to learn English inaad barato Ingiriiska? Okay, when do you like to learn English goorme ayaa jeceshahay inaad barato Ingiriiska? Okay, B ayaa ka jawaabay wuxuu leeyahay I like waxaan jeclahay to learn English inaan barto Ingiriiska in the afternoon galabtii inaan barto ayaan jeclahay. I like waxaan jeclahay to learn English inaan barto Ingiriiska in the afternoon galabtii. Okay, I like to learn English in the afternoon waxaan jeclahay inaan barto galabtii. Okay, B ayaa qaadanayo wuxuu leeyahay okay waxa A ayaa qaadanaya wuxuu leeyahay where do you like to learn English? halkee ayaa jeceshahay inaad ka barato Ingiriiska? Where do you like to learn English? halkee ayaa jeceshahay inaad ka barato Ingiriiska? Where do you like to learn English? halkee ayaa jeceshahay inaad ka barato Ingiriiska? Okay, B ayaa ka jawaabay wuxuu leeyahay I like waxaan jeclahay to learn English inaan Ingiriiska ka barto from Ashraf Academic Online inaan ka barto Ashraf Academic Online. I like waxaan jeclahay to learn English inaan Ingiriiska ka barto from Ashraf Academic Online. Ashraf Academic Online inaan ka barto ayaan jeclahay Ingiriiska. I like to learn English waxaan jeclahay inaan Ingiriiska ka barto from Ashraf Academic Online. Ashraf Academic Online inaan ka barto ayaan jeclahay Ingiriiska. Okay, A ayaa qaadanaya wuxuu leeyahay why do you like to learn English? maxaad u jeceshahay inaad barato Ingiriiska? Why do you like to learn English? maxaad u jeceshahay Ingiriiska inaad barato? Why do you like maxaad u jeceshahay to learn English inaad barato Ingiriiska? Why do you like to learn English? maxaad u jeceshahay inaad barato Ingiriiska? Okay, B ayaa ka jawaabay wuxuu leeyahay because maxaa yeelay I wanted to be an educated person waxaan rabaa inaan noqdo qof aqoon-yahan ah. I want waxaan rabaa to be inaan noqdo an educated person qof aqoon-yahan ah but laakiin I don't like ma jecli to be inaan noqdo an ignorant person like you qof jaahil oo adigoo kale ah. I don't like ma jecli to be inaan noqdo an ignorant person like you qof jaahil ah sida adigoo kale because maxaa yeelay I want waxaan rabaa to be inaan noqdo an educated person qof aqoon-yahan ah but laakiin I don't like ma jecli to be inaan noqdo an ignorant person qof jaahil ah like you sida adigoo kale ah. Okay, B ayaa qaadanaya how many months would you like to learn English? imisa bilood ayaa jeclaan lahayd inaad ku barato luqadda Ingiriiska? How many months imisa bilood would you like ayaa jeclaan lahayd to learn English inaad ku barato Ingiriiska? How many months imisa bilood would you like ayaa jeclaan lahayd to learn English inaad ku barato Ingiriiska? How many months ha ku dhawaaqin months would you like to learn English? imisa bilood ayaa jeclaad inaad ku baratid luqadda Ingiriiska? B ayaa ka jawaabay wuxuu leeyahay I would like waxaan jeclaan lahay to learn English inaan Ingiriiska ku barto
for 1 year hal sano inaan ku barto ayaan jeclaan lahaa Englishka. I would like waxaan jeclaan lahaa waxaan jeclaan lahaa to learn English inaan English ku barto for 1 year hal sano inaan ku barto ayaan jeclaan lahaa. Okay, ayaa qaadanaya wuxuu leeyahay how long have you been learning English? Imisa bilood ayaad soo baranaysay luqadda Ingiriiska ama Ingiriiska imisa muddo intee ayaad soo baranaysay? How long have you been learning English? Muddo intee ayaad soo baranaysid Ingiriiska? How long have you been learning English? Muddo intee ayaad soo baranaysay luqadda Ingiriiska ama Ingiriiska? Okay, B ayaa ka jawaabay wuxuu leeyahay I have been learning waxaan soo baranayay Ingiriiska for a long time muddo dheer ayaan soo baranayay. I have been learning English waxaan Ingiriiska soo baranayay for a long time muddo dheer ayaan soo baranayay ama waqti dheer ayaan soo baranayay. I have been learning English for a long time waxaan soo baranayay waqti dheer. Okay, ayaa qaadanaya wuxuu leeyahay why have you been learning English for a long time? maxaad u soo baranaysay muddo dheer Ingiriiska? Why have you been learning English for a long time? maxaad u soo baranaysay muddo dheer ama waqti dheer luqadda Ingiriiska? Okay, why have you been learning English? maxaad Ingiriisku soo baranaysay for a long time muddo dheer maxaad Ingiriisku soo baranaysay? B ayaa ka jawaabay wuxuu leeyahay because maxaa yeelay I want waxaan rabaa to be inaan noqdo a clever student arday xariif inaan noqdo ayaa rabaa. Because maxaa yeelay I want waxaan rabaa to be inaan noqdo a clever student waxaan rabaa arday xariif inaan noqdo. Because maxaa yeelay I want waxaan rabaa to be inaan noqdo a clever student arday xariif ah. Okay, ayaa qaadanaya wuxuu leeyahay do you like ma jeclaa lahayd to be inaad noqoto a clever student arday xariif ah? Do you like ma jeclaa lahayd to be inaad noqoto a clever student arday xariif ah? Do you like ma jeclaa lahayd to be inaad noqoto a clever student arday xariif ah? Okay, B ayaa ka jawaabay wuxuu leeyahay oh Allah yes I like waan jeclaa lahay to be inaan noqdo a clever student arday xariif ah. Yeah oh Allah yes I like waan jeclahay to be inaan noqdo a clever student arday xariif ah but laakiin I don't like ma jecli to be inaan noqdo a dull student arday damiin ah laakiin sida adigoo kale. Oh Allah yes I like waan jeclahay to be inaan noqdo a clever student arday xariif ah but laakiin I don't like ma jecli to be inaan noqdo a dull student arday damiin ah laakiin sida adigoo kale. Okay, intaas ayaan ugu soo talagalay waxaan filayaa inaad ka faa'iiday oo aad u xiiso badnaay wada sheekaysiga. ha ka ilaawin inaad comment ka bixiso wixii su'aal ahna comment inoogu reeb inaad like saartan ha ka ilaawin caafimaad adan idiga tagay intaan cashir kale oo xiiso badan ku kulmayno. Bye bye.